حجرة وحياب الله كب عملك أي نوبة هنين كوكبنا ووحي هذان استغفرت إلهي دم بدافك اللي ويدي استوى الله بشيء هذه يقول مرك إنه استغفار شيء إن الدم بداف بينه كوفا سرة لكن ما أها في عربي أهان وكبل عليه سي علماء وشرحان وهي وحي لي استغفرته دم أطربتين لقى ضعفنا ويتي وحي كلوته هي بيد هذان جبران النقص هي اعتذار نويته هي بيد هذان عمل كذا وحي كرد إنه هذا إله أنت سنة وده ويقدر مستر إيوه اعتذار تصالها بنادمك وحكو فهماي تصالها كسيه قف أبال كقوله أما حق كقوله أما أدوينين ساكو يمي مركزات ربطين أدو حسيسه عسونتيد وحقبتيد لكن هذا واحد دريميسا أبال قف كان كقوله يوحنا وضاين أنا يسعون طمن إن أنا يسلاكين أدو أنتي أدو ودي وادلتمي لكن أبال كي لقوقولها ما تقودين maxaynu ku darnaa markaa cudurdaar baynu raacinaa waxaad tidhaahdaa dee wejiga waxaanaan ku siinaya wax kuu cuntama maaha ama wax kuu qalma maaha ama erayadatan maxaynu uga jeednaa adaana wax bixinaya haddana erayadan waxaad rabtaa inaad muujiso abaalka lagugu leeyay inuu ka weynaa waxa aad bixinayso walidaalika baad eraya ku daraysaa iyo kalimaad fiican adigoo raba inuu qofka kale aqbalo cudurdaarkaaga oo inta tan uu arko nin abaal gudayo in atleast inaad tahay tamarta meesha ku dhigtay nin raba inuu abaal gudo inaad tahay istighfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sida tan oo cibaadaadka iyo taacaadka waaweyn ee layna faray oo dhan waxa daba yaala istighfaar مثلا xajku waa arkaanul islaamku ka mid yahay cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa goob la istaago goobaha ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafa ka mid ah markaad carafa istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weynaynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuu ina yidhi ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم استاجا بقى إلهي يدي هلك دتكو استاجا قريشي waxay oran jirtay xaramka anagu ka bixi mayno carafi xaramka way ka baxsanta marka munaya intaan xaramkaanu joogaynaa waxa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo waliba halka marka istaagtaan soo dareertaan dib soo noqotaan waxa amal sameeyeen oo dhan waxa ku dartaan istighfar ba ilaahayna leeyahay subhanahu wa ta'ala yani hajj inagu ku jirna baynu ka daba geynaynaa maxay istighfar waxa layna baray oo nabigu ina baray alayhi salatu wasalaam salaada markaynu tukano waxa koowaad aynu qabanaa waa maxay نبي محمد مركو صلاة من نقصدكو صدح جربو رجل استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما معسبو سميني وكا استغفر الله سني ما هي صلاة بكجري لكن وام حي وحولي إله حقاقي ولي ما نقودين أنا قو انتي أنا وهذا يوان سمي وين سودة دا لو ويسي سنو صوك عنا يو إلهي هرنمي إلهي ويسور تاقني انت إنو أودي كريني وابدا دا لو واسميني لكن وحين رميساني مرر بدن بينو بحينا وقلبينو ميل كلا جيري مر بينو وحينو اخرينayna fahmayna mar baynu aduun iskaga mashquul ah hadana salaadaynu wadnay dabeetana waxa dhaday ilaahu intaas umbaan maanta awoodaya inta iga aqba waxa ka daba geynaysaa marka maxay istighfar marka salaama naqsatayba waxa dhaday ilaahu xaqaagi maan gudanin istighfartani waa i'tidaar marka aad raacinayso ilaahay quraanka wuxuu inooga warramaya kuwa jannada galaya إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلهي وحولي كوا متقين تاه يا الله كعب صدي آخر برأي إلى بيودي جنوين بيليه آخذين ما آتاهم ربهم وحي قادر يوحي السيبا ليري النعمة هي آخره ليه لكن إلهي وحليه سببت ومحي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أدون كي مركي أي تشوغين أي هاي يندد إحسان كسمايا محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هبين كي إن يربي سيحجر با إلهي أفر سهدبا إرقل دبا وبالأسحار هم يستغفرون وقت السحور كمركي قادنا استغفار بي أفريسان جيرين هبين أردن انتو عباديستو
ayuu wuxuu ku gabagabaynayaa salaadiisii istikfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga semaan gudanin waxaanaan sameeyey caawo dhan la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagii waxaad xaq u lahayd saa daraaddeed ayay istikfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastakfir lidambika walilmu'miniin baa la yidhi ka dabagee haddaba ayuha alaxiba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nebi maxamed 23 sannadood buu jihaatamayay oo ilaahay diintiisa wax waliba ku soo gaadheen oo loo dhibay oo loogu hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan aynu akhrinay tirada badan leh ay soo marto 23 sano kadib aakhir suurad ahaan nebi maxamed ugu soo degta bal waxa alla faraya u fiirsa haddaba suuraddii ugu dambaysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaa nasru llahi walfatx warayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu inahu kana tawaaba markaad aragta ee uu kuu yimaado baa ilahay yidhi ilaahay guushiisu marka hore nasriga iyo fatxigaba ilaahay baa siiyey waa min nicam illaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay kuu timi aada maka iyo adduunba furatay oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja oo aada aragto dadka oo diinta koox koox u gelaya waagii hore islaamku uu bilow ahaa nebi maxamed isagaabaa la caydhsanayay kadib qof baa qarsanayay qof baa intuu islaamu odhanayay orad reerihiinii qabo barigaad maqasho waa guulaystuunii kaalay saasay ku socotay ilaa iyo ay soo gaadhay markii dambe qabiile in loo islaamo afwaaj koox caamil wufuud nabiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo maca salaadiintoodii iyo waayeelkoodiiba wataa u yimo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee baa ilaahay ku yidhi aadanaha aan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaan dee maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofka oo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka waa la caleen halkuu qofku isdhul dhigi laa odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyo nasriga ay siiyey ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuu maka furanaya guulaysanayay neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsan oo madaxu hoos u laalaaduu nebigu soo galay calayhi salaatu isagoo mutakabiroo isweyneynaya muu soo gelin saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aada aragto dadkoo diinta koox u soo gelaya maxay samey baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku maraya ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tanziih waa ilaahay oo waxaan u cuntamin aad ka nasahayso ilaahay oo aada xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufan yihi waa ka dheeriye naqsi male ilaahay taxmiidu ama alxamdu lilahna waa maxay waa ilaahay oo aada ammaanayso bikamaalihi wa kamaali afcaalihi aada weyneynayso ku weyneynayso acmaashiisa fiican idan waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox u galaan ilaahay weyneeyo xumo ka huf ammaan oo ammaantu xaq u leeyahay ammaan adiguna wixii aada camal la timi wastakfirhu inahu kana tawaaba ilaahay u toobadkeen baa la leeyahay oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey wixii camal tuurla aan la imi waxaan kuu cuntamayna aan sameeyey ilaahayow iga aqbal dheh qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyahay innaga maxaad u malaynaysaa